Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan halkan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano placebo effect oo ah mid ka mid a waxyaalaha cilmiga caafimaadku uu aad u adeegsado balse bulshaduna aysan ka marnayn isticmaalkooda xagga nafsiyan. Maskaxdu waxa ay ku noqon kartaa aalad xoog badan taa oo ka caawisa in aad ka kabato dhibaatooyinka jireed iyo kuwa nafsiga ee kusoo wajaha noloshaada maalinlaha inta aad ku guda jirto. Waxaase suuragal ah in maskaxdu ku qanciso jirkaaga daaweyn aanan jirin taa oo keensata in jirku aqbalo taasi oo loo yaqaano placebo effect. Waana waxaan uga hadli doono mawduucan. Arrintan waxa ay si weyn uga dhex muuqataa habka daawo dhaqameedka Soomaalida ay leedahay. Tusaale ahaan cudurka loo yaqaano hepatitis A iyo E oo ah cudurro infectionis ah Soomaaliduna u taqaano cagaarshowga ayaa daawo ahaan qofkii uu ku dhaco waxaa laga gubaa boga iyo gacmaha iyada oo qofku uu ku dhaco markii uu 2 isbuuc kadib jirkiisu iska difaaco ama iska caabiyo ee uu ka reesta la yiraahdo waxa uu ku bogsado daawadii ahayd gubidda oo ah daawo dhaqameed. Balse taasi ma ahan wax jiro inaysan jirin. Waxaa tusaale weyn ah haddii qofku uu asiibo isla noocyada kale ee hepatitis-ka ee loo yaqaano B-ga iyo C-ga ma suuragelayso in qofka la gubo kadibna uu reeso oo waxaa loo bahnaanayaa daaweyn saxa iyo in qofka isbitaal la geeyo. Saynisku waxa uu muddo dheer diidanaa waxa loo yaqaano placebo effect in ay tahay wax saxa oo la isku halayn karo isla mar ahaantaana bini'aadamka aaminaada ay aaminayaan waxyaalaha aan daawada ahayn in ay ku reestaan ay tahay waxyaalo in cilmi ahaan aanan la aqbali karin. Placebo effect ayaa waxaa la ogaaday in ay jirto mar dhow. Culimadu caafimaadkuna waxa ay xaqiijiyeen haddii la helo xaalad ku habboon iyo environment ama bay-o suitable u ah in ay noqon karto daawo dhaqameed waxtar leh ama effective traditional medicine. Placebo effect ay ka mug weyn tahay hab togan in loo fakaro amaba rajo wanaagsan oo in qofku uu ku fakara ama u aaminahay in haddii daawo heblo amaba qalin hebel lagu sameeyahay uu qofku bogsoonayo taasi oo ah xiriir weyn oo ka dhexeeya maskaxdiisa iyo jirkiisa. Placebo effect-igu waxay ka dhalataa in qofka la siiyo wax loo yaqaano placebosku waa wax aan ahayn daawo qofkuna lagu tijaabiyo waxaana inta badan laga isticmaalaa meelaha xarumaha caafimaadka khaasatan kuwa lagu sameeyo cilmi baarisada la xiriira daawooyinka. Tusaale ahaan haddii la rabo in la tijaabiyo daawo loo qaato cudurka dhiigkarka waxaa la isku keenayaa dad dhiigkar qaba waxaana loo kala qaybinayaa 2 group ama 2 kooxood. Group kamid ah ama koox kamid waxaa la siinayaa waxa loo yaqaano placebos. Groupka kaleetana waxaa la siinayaa daawada rasmiga ah ee la rabo in la tijaabiyo. Waxay ku kala duwan yihiin labada daawo. Daawona waa daawo sax ah oo loogu talagalay in lagu daaweeyo dhiigkarka. Tijaabo ayayna ku jirtaa inay waxtar u leedahay in kale lagu xaqiijinayo. Halka tan kale ee loo yaqaano placeboska ay tahay wax daawadaas u eg balse aanan dhib iyo dheef midna keenaynin oo aanan ahayn daawo balse la rabo in dadkaasi labada kooxood markii la kala siiyo la ogaado in daawadii dhiigkarka loogu talagalay ee tijaabada ku jirta in ay shaqaynayso iyo in kale. Haddii ay shaqayso oo ay soo saarto result isla mar ahaantaana ka duwanaato daawadii kale ee aanan shaqaynin ee placebada waxaa la leeyahay waa good way shaqaysay daawadaasi waana loo isticmaali karaa dhiigkarka. Balse haddii ay dadkii qaadanaya placebada reysasho muujiyaan ama dhiigkarkoodii uu isbedel ku yimaado waxaa la leeyahay waxaasu waa placebo effect waxayna muujinaysaa in labada kooxoodba qaadashada daawada ay qaadanayeen maskaxiyan ee keensatay in ay reestaan daawadii tijaabada ku jirtana waxaa loo aqoonsanaya inay fashilantay. Balse mar aan saa usii fogeyn ayay khubaradu ogaadeen in dadkii qaadanaya placebada ee reestay amaba isbedelka ku yimaaday ay jirto sabab keensatay oo ah wax aanan ahayn daawada ama waxa loo yaqaano non-pharmacological mechanisms oo ah waxyaalo aan daawada la xiriirin oo maskaxdooda ka dhacaya oo keensaday in ay reestaan. Waxaana mar aan saa usii fogeyn la ogaaday in ay jiraan 2 maado ama neurotransmitter oo loo yaqaano endorphins and dopamine kuwaasi oo saameyn ku leh walow aan aad loo fahmin balse waxaa la ogaaday in labadaani maado ay ka howlgalaan qaybo maskaxda ka mid ah oo qaabilsan moodka, reactionka iyo self awareness-ka amaba iska warhaynta iyo ogaalka nafsiga ah. Waxaana la ogaaday haddii qofku uu helo care oo uu dareemayo in lagu dadaalayo in maskaxdiisu ay dhacaanada sii daynayso kadibna jirka loo sheegayo in
uu qofku daawoobayo ama daawo la siinayo. Tusaale ahaan, waxaa cisbitaalada caanka ah oo jira wax loo yaqaano placebo surgery ama sham surgery, oo ah nooc qalliin ah oo lagu sameeyo marka bukaanka la rabo in uu qanco iyada oo sabab loo sameynayo oo caafimaad aysan jirin iyo cudur laga daaweynayo. Kaliya waxaa la rabaa in bukaanku uu dareemo in qalliin lagu sameeyey, loo dadaalay, wixii meesha ku jiray ee haray laga soo saaray. Waxaasoo idil markii la sameynayo waxay hadafku yahay in maskaxiyan uu qofkaasi raysto. Laakiin marka hore culummada caafimaadku ma ogeyn mechanism ahaan qaabka ay ku imaanayso. Waxaase hadda sida aan sheegnay la ogaaday in endorphinska iyo dopamiinka ay ka howlgalayaan saddexdaas qaybood ee maskaxda ka mid ah, isla mar ahaantaana ay keenayaan in qofku uu dareemo maskax ahaan in lagu dadaalayo amaba la daaweynayo, kadibna jirka lagu wargeliyo daaweynta ku socoto, kadibna calaamadihii uu qofka dareemaya istaagaan. Si gooniya waxaa la ogaaday placebo effectiga in ay ka shaqeyso ama marka qofka placebada la siiyo waxyaalaha uu ka daawoobo ay tahay calaamadaha ee aysan ahayn cudurka ku hayo sidiisu u jiraya, laakiin qofka calaamadihii uu dareemayay qaarkood ayaa waxaa la arkay in ay istaagayaan amaba aysan dib usoo muuqanayn. Waxaana tusaale u ah ilaa iyo 3 arrin. Saddexdaas arrin waxay kala yihiin xanuunka. Waxaa la arkay dad badan oo xanuun hayay oo cisbitaallo jiifay oo cudurro waaweyn qabay sida kansariska oo kale, oo markii la siiyey daawo placebo ah oo aanan xanuun baabi'iye ahayn balse loo sheegay in ay xanuun baabi'iye tahay, ayaa la arkay in xanuunkii uu ka yaraaday. Sidoo kale dadka qaata daawooyinka kansarka waxay leeyihiin calaamado ay ka mid tahay daalka iyo labalabada, kuwaasina markii dadkaasi la siiyey placebo waxaa la arkay iyaga laftooda in ay wax ka tartay oo ka istaagay. Haddii aan u gudubno ugu dambeyn, si loo gaaro faa'iidada caafimaad ee ay leedahay placebo effect, waxay culummadu sheegeen in loo baahan yahay environment ku filan. Tusaale ahaan, haddii maanta aad baxdo oo aad tagto cisbitaal, isla mar ahaantaana uu ku qaabilo qof da' ah oo qof khibrad la kula muuqdo oo si wanaagsan u labisan oo si wanaagsan kuu baara oo daawo kuu qoro oo ku dhawaa bogsanaysaa mar dhow, niyad ahaan waxaad dareemaysaa in lagu keergareeyey, si fiican lagu baaray, daawo fiican lagu qoray, qof khibrad lagu qaabilay. Inta aad xaafadaada usii socotana intaas ayaa maskaxdaada ka dhex guuxeed. Waxaana laga yaabaa xataa haddii daawadaasi aysan dhammaystirnayn in nafsiyan aad dareento in aad raysanayso. Laakiin haddii intaa cisbitaalka timaado wiil dhalinyaro ah oo ku qaabilo, si fiican lagu soo dhaweynin, aadan dareemin in keer fiican aa heshay, xataa haddii uu daawada saxda ahayd kuu qoro, waxaad nafsiyan dareemaysaa inaadan daawada saxda ahayd qaadan. Marka haddii aan soo koobno placebo effect waa waxa ka dhasha markii qofku uu qaato ama lagu sameeyo wax aanan daawo u ahayn wixii uu qabay, balse uu nafsiyan aamino in waxaasi ay daawo u yihiin, kadibna la arkay in calaamadihii uu ka cabanayo uu ka rayso. Iyo sababta ay ku timaado oo aan sharaxnay oo mar dhow ay culummada caafimaadka ogaadeen, oo ah in maskaxdaadu soo dayso dheecaano ka caawinayo in ay dareento in ay bogsanayso, kadibna jirka ay ku wargeliso, jirkuna uu aqbalo. Halkaas ayaan kusoo koobaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.